magaalada Jabuuti ayaa waxa ka dhacay meherka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Jabuuti iyo gabadh uu dhalay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. meherkan ayaa waxa lagu soo marti qaaday fanaaniin aad u tiro badan. haddaba qaar ka mid ah fanaaniinta reer Jabuuti ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen qaabkii loo xulay fanaaniintaasi lagu marti qaaday meherka wasiirka waxbarashada dalka Jabuuti iyo gabadha uu dhalay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. fanaaniintan cabashada muujinaya ayaa waxaa ka mid ahaa Siciid Meecaad oo ka mid ah gudida jaalada Yurub ee dalka Jabuuti, Aamina Jaamac, Aamina Afriik, Faadime Axmed oo iyaduna ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee dalka Jabuuti oo intuba ku sugan magaalada London ee cariga Ingiriiska ayaa waxa ugu horeen halkaasi ka hadashay Faadime Axmed waxaana ay tidhi waad mahadsantahay Cabdaani. horta tooraysa waxaan salaamayaa madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadeedii aan jeclaa Khadra Maxamuud Xayd baan salaamayaa. shacbigayga si uu u dhan yahay yar iyo ilaa weyn na waan salaamayaa. waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan gabigiinaba. waxa ii xigta waxaan salaamayaa wasiirkayga maxay ahayd tacliinta arooskiisii oo had iyo jeer marka tigidha badan ay dhaafayaan oo la yidhi arooskii Jaamac yaa jiray iyo inaba Ismaaciil Cumar. marka waxa weeyaan horta anigu Faadime Axmed baan ahay, fanaanadii wadanka ugu weynayd baan ahay. waxyaabaan halkan ka socdana anu ma garanayo ee la wado. inta waan maqlayaa waxaan arkayaa tigidha ay dhaafaya iyo talo aan la igala tashanin. marka kow horta waxaan odhan lahaa dawladaydu may riyoonaysaa mise way hawaawiyaysaa. qof Soomaaligu uu badan yahay waxa weeyaan fanaaniintii reer Jabuuti may dhamaadeen. waayo waxaan taa u oranayn oon indhahayga ku soo arkay anigu fanaanadii ani iga sii weynayd waxay Xaawo Geelqaadna waxay seexataa lagaarkii Jabuuti barandihiisa seexataa ma guri baa loo waayay guri looma waayin. marka dawladdeedu hadday xaqirayso oo warba noo haynin waxa weeyaan dad kale dawlado kale inay u yeedhato xaqiiq ma aha. waxa weeyaan anu halkan Ingiriiska waxaan ahay fanaanadii ugu weynayd ee reer Jabuuti ee wax walba imanaya waa inaan ogaado oo aan la socdo. anu in badan waan aamusnaa saab indhaha ka daawanaya dadka waa dhagahana waa ka duubanayay. waayo waxaan anu wadaniyad wadanka u dhalatay mana qaadan karayo in maxay ahayd wadankaygu markuu wax leeyahay kolba fanaaniin aan iskaaga istaahilin in la soo galo raalli kama yihi. marka waxa weeyaan waxaan leeyahay dawladayda waxaan leeyahay ha fiirsato waxaan ay ku hadlayso iyo waxay sameynayso. halkan waxaa jirta mar anigu Ingiriiska markaan hortaba imi waxaan gaaray inaan dahabkayga raamoon meel taasi jiwaan lagu dhigay sameeyo cidna iga gargaarin ma garatay. marka waxa weeyaan ninkiisu dilayana dee nin nool ma aha. inta aan dul qaatayna haddee toole anigu reer Jabuuti ma dul qaadanayo insaan la ii jirjiiro oo aniga karaamadayda ay dawladda hoos u dhigto oo dad aan garanayn oo shaqo ku leh reer Jabuuti inay tixgeliso anna dhaga la ii yeelo waayo. in badan baan aamusnaa oon dhagaha duubtay laakiin haddeed ma aamusayo. waxa weeyaan waxaan arkayo dad mucaarida oo mucaarad isku sheegay dawladana hoos gablaya loo soo diraa wax oon ogeyn. tahay waa midna waxaan odhanayaa wasiirka maaliyadda Ilyas Muuse Dawaale daraad maad ilowday ina yaro fanaanada oo gacantayda aanu soo saaro ina Jaamac Dabaro la yaqaano oo fanaanado heesta markay ugu jawaabaysay Saada Cali ana gabayga ka horreysiyay. marka adu marka wax lagu yeelan ma inay dhaga kala malihid wixii lagu sheekeeyaad ka sheekaysaa. waxa anigu aan leeyahay anu imika fan ku doodayo ma jiro. fankaygii waa faraha ka qaaday waan joojiyay xagga ilaahayna waan iskaga weecday. laakiin haddana waxaan doonayaa inaan
dadka wuxuu sheego ninkanad mas-uul ka dhigtayna la yidhaahda cali sayid fanaaniinta u soo dirteen horta balqabso reer jabuuti ma aha inuu fanka dhex galo uu kala shushubo aniga inuu wax ii sheegay ahayd maaha inuu isagu tala iska qaato ma garanaysaa ninkaasna wuxuu wadaa qas weyn waayo horey buu qas u sameeyey ee imika uguma horeyso hees alayow ha dhicin ahayd uu lixinka qoomaal sameeyey midhahana anaala uu yidhi ayuu intuu aanu ku dhignay barnaamijka calasaarka jabuuti haddana u quuri waayo intuu maroorsaday hargeysa geeyey marka ninka waxana dhex wada reer jabuuti maaha caliseeyo arrimaha fanka jabuutina ma gali karo meeshan anaa hooyadii fanka oo fadhiya waxaan leeyahay waxbaan idin sheegayaa anigu haddii runta la doonayo fanaanadii jabuuti ee ugu weyneed baan hoo ingiriiska fadhida laylama tashado waxba layma weydiiyo ma garanaysaa marka waxaan leeyahay ha isku fiirsadaan kolkay wax sheegeen ta kale waxaan ku soo noqday xaawo geelqaad guri yar looma waayin sangubna isagoo waddanka una dhalin shaqana ku lahayn baa mandarad cirkaa joogta la siiyey oo isagu weliba ka maqan yahay xamarka shaqaysto iyo xaaskiisa iyo ubadkiisa fadhiyaanoo la siiyaa 200 kun xaawo geelqaad guri yar oo kariyadaa loo waayay marka anu waxaan leeyahay haddaan faadimo axmed dambiilahay waa inaan runta taabto teeda kale innigaa dadka ka cadhaysiinaya innigaa maxayda dad aan ni ogayn oo waxba ni ogayn war idinka hayn dabalalaya anu waxaan ku koobay waa idinkaa reer jabuuto war maxay hayday shalay markay saade cali 40 malyan siiyeen ay cay soo dudubisay inantii yaraydee maxay hayday ka jawaabtay aamina jaamac dabar oo aamina afriig laydhaa ayaan maxaad sheegtay looran markaaba annagu ma waxaan nahay dad maskaxda laga dilo maniin waxaa imika ka dambeeyana waan hadlayaa haddaan faadimo axmed ahay ha sugaan waxa soo wado waxaan leeyahay ninka cali seeye laydhaa haddii degdeg reer madaxda jabuuti wax uga qaban waayaan mucaaradkiiba waxa kaga daran oo wuxuu ku kicinayaba dadkii yurub jooga reer jabuuti fanaaniin leh cid walba leh ayuu kicinayaa uu dawladda ku dirayaa marka waa in la iska qabta ninka cali seeye war bahashan duubaneed qabyaalada ee la dhex wareegaysa Soomaaliland ku kala gurtay ee halka la timi cali seeye bahashan duubanay qabyaalada ee la wareegaysid ee Soomaaliland ku kala dishay annaga nagu kala dili mayside ka dhex bax mujtamaca ka dhex bax cali seeye ayraado imikana waxaan ku soo dhaweynayaa Saciid Meecaad oo kamid ah gudida jaaliyada Yurub ee dalka Djibouti ku soo dhaw Saciid bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Saciid Meecaad oo ka tirsan gudida Yurub waxaan halkan horta ka salaamayaa oo leeyahay Ramadaan Kariim ee reer Djibouti dhamaantood iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamed Xayd iyo barlamaan dhamaantiida dabadeedna waxaan halkan ka hambalyeeyaa jaamac okiye iyo hibaaq Ismaaciil oo aroos wanaagsan leeyahay ilaahay arooskiisku waara kiisku qaba ilaahay ka dhigo inta kadib waxaan halkan ka hadlayaa arin aad mudreej Djibouti ay uga afrirtay oo afrir nagu riday oo meel aliya meel ay ka socoto aan garan weyn taas oo niyad jab dadkii aan isku keenay inta sanadood aan u dhibaatoonay buuq soo dhexgelisay taas oonan ka filayn oo ah fanaaniinteedii reer Djibouti aan dad aan shaqo lahayn loo soo diray oo mas'uul looga soo dhigay taas oo joogto hooyadeedii fanka odayaasheedii ay joogaan wax ali waxaan ku ognahay jirin iyo muddo uu leeyahay dad baa tigidha loo soo diray umadiinina shaqeynaysay intaas oo dhan xarbisay intaas oo dad socotay nilma soo qiimeyn laakiin dadka kale laga aftalay way ay ku dhacday marka aniga arinta waxaan doonaynaa arintaasi sida ku dhacday sida aan qof reer Djibouti ahayn oo dhibaato ku wada wadankayga aan ogoleen iyo halka timiday taas oo ah ninka la yiraahdo Cali Seeye waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti iyo fanaaniintooda iyo wuxuuga inuu ka dhaxbo hadduu ka dhixi waayana oo inta in ka badan oo Soomaaliya soo kala dilay anigu reer Djibouti hadana qabyaalad madii
dad isku dhooman baanahay dad isku jecel baanahay ummadii aan isku keenay inta madaxweynahayaga mucaaradka aan uga soo saarnay intaas oo dhan هجمينا أو هدعينا أو هجمينا الآن يا إمكا ديموراليزاسيون الغريدة أنا كو هذا رجبوتين هاي وإحنا ديموراليزي ومبهنين تاد اسكو دومن بان هاي لعب مبهنين وما ضيضا وحن قطرمو يعني وحن كترمو دوران هذا ومدني أيوك محايد وتجيان إنه وحكي إلى رجبوتي أما أي رجبوتي ما قاعد كدونا يعني معها رجبوتي وحن لاهي أنت ضدش الشيء وحسين هيدين ومدينة نلجوكتا وحسية فنانين تينا وضك الجوكتا هو سوء إيقع واحد بدك ما دا وحبيني ما تري waxa hood jooga ayaa wax ku taray dawlad waxa ku noqotaa amba dawlad lagu noqdaa marka dadkaaga hoos u eegto marka aan waxaan ku leeyahay ummadana reer Djibouti waa inaad eegtiin fanaaniin baan leenahay maanta uma baahnidina fanaaniin dibadda nidaga yeero uma baahnin fanaaniintii wadanka joogto wax walba sameynaya joogta abwaan baa jooga journalist baa jooga marka ummadda reer Djibouti iyadu hoos isku eeg أنا وحلاهي نيكا وعصود درتي هي نيكا وولا على سيل ليه أنا ومرة بعد ولاهي وزارتنا ولاهي وما تقدر رجبتي اسكننا وأكتين أنا هنا رجبتي وأكتين أنا وددانو وأكتين أنا بعد كل شيء مدحوينا الضير بتاعي وأكتين أنا سجال يتوسع عضو الطريق وصعبي تضبي لا تكي جوان إيمك بريس معارض أدوية الدم يعني بريس وتجنوات وجدين مركا عنك هدي أن قيمة ويدين أو ذكر قيمتين حتى إنه مثلا وحلاهي فنانة دي وين ده وضك جوت فهد محمد بجوت مركا ديدا فهد محمد جوت من الجامعة دبر أفريقيا وجوت وأوي لما يكرت وين تيجي كرس وحوي هو يدي فك أو وضك جوت أو القيمة وين أو أمد وضك هيج أهين القيمة أو عليه كان جاري مركا عنك وحلاهي ومد ده رجبتي هو سكو إيجان هنا إيجان هنا نوغادان هذه كره إنتان سو أببني هنجد دلنا أو وحن هنو كيننا أرسيو والمقلس رجبتو أرسيو هادو كده بعوايو ديموراليزاسيون ومدحوينها قوة مدحوينها هيك وحول الربع يمر وذي وحول الربع اسكدر أو مضى يدا كل حدره وحضونا يا إنه مضى يدا مدحوينها قدره وحضونا يا مروذا خاطر محمود حيدي من ضدك قدره وحضونا يا شعب رجبوتي إنه اسكدر ومدح اسكد قليل مركا أنا وحلا على سيو بنا كجوكس هدات كجوكس ويدنا تحبك كجوكس أنا عندك مع صودا إلهي ما كعب صودا ربنا وين الشيء السلام عليكم imikana waxaan ku soo dhaweynaynaa Amina Jaamac Amina Afrique oo kamida fanaaniinta reer Djibouti Amina ku soo dhaw waan ku dhawahay cadaani marka hore assalaamu calaykum dhamaan reer Djibouti baan leeyahay marka labaad waxaan salaamayaa xukuumadda Djibouti iyo madaxweynahayagii iyo marwadiisii iyo gabadhiisa aroosanaysa aroos wanaagsan marka hore leeyahay marka labaad waxaan naga hadlayay maanta aan iskugu nimin aan u hadlayno sheeko aan la yaabnay aanu ka sugayn dawladayada ambase aanu ka sugayn wixii soo wakiishay dadka waxaanu leenahay marka labaad dadkii waxa lagu riday niyad jab ay la wala aamusihiin dadkeena reer Djiboutina waxay dhaqan amba dabeecad u leeyihiin inayna waxba ka hadlin haddaan wax ka hadlayno waxba la hagaajin lahaa kulay laakiin anagu waxaanu sheeganaynaa dhibaatada jirta inta aamusanna waanu hadlaynaa soo waxaanu sheegaynaa annaka waxaan ugu dhacday dawladda Djibouti fanaaniinta reer Djibouti haddaanu nahay mid maaha laba maaha saddex maalinta laga tagay taasina wax cadaalada maaha dadka dawladda waxaan leeyahay amba ummadda ha sinto amba faraha kala baxdo wixii dibadda jooga haddii kale ummaddu way ka fogaayeen inta guuxaysa badan annagu si cadaalada baan u garab joogna dawladeeda laakiin inta guuxaysa badan ee u socota maxay hayd bari wax ka heli doontiin dawladda waana inta inay timiday iyaan ni sheegaya runtaan ni sheegaya markaas anu dawladeeda Djibouti runtii waxaan uga baahanahay horta ma jiro laakiin waxaan jecelahay agjooga iyo garabka aanu siinayno aanu rabin inuu wadankeena wax qalaasi wax dhibaato ay ka dhacdo aanu ka ilaalinayno aanu umada inta halgan aanu kula jirno inay inoo ogaato wixii la isku ogyahay marka wax la ogyahay niyad jab ma igu dhacayo laakiin hadda waxba la ogeyn aniga niyad jab baan ugu dhacaya aniga inta kalaba waxaan inii sheegayaa umada sima haddii kale faraha kala baxa dadka qurbaa waxba niigama baahna
ina sintina ina faraha kala baxdeen waxaan kaloo inii sheegayaa Djibouti fanaaniin bay leedahay wadanka jooga hadaa fanaanimo loo baxdo waxaad kaloo jira wariyaal iyo wax walba wadaysateen anu waxaan doonayaa ummadda niyad jab badan bad ku ridin dadka reer Djibouti kama hadlaan ummadda reer Djibouti way guuxayaan anu waxaan nii sheegayaa guuxaas horta inaad inaka niyad jabka sameeyay inaka nagu soo noqotaa laakiin niyad jabka aan nagu ridina horena waa nagu rideen imakana waa nagu ridayseen so marka labaad waan ka gudbayaa waxaan ii rajaynayaa khair marka ugu horeysa marka waan iga gudbayaa waxaan ka hadlayaa xanxanteeye fanaanka xanxanteeye oo nin inaad arkaya waxaan sheegayaa dhibaatadu igu haya isaga iyo guddi kale wato wuxuu igu wadaa aniga qabyaalad ba horta lagu eryadaa qabyaaladna meesha way ka jirtaa runtii aniga Ismaaciil talala gaari waay aniga waa laygu ridaa markaste anigu Ismaaciil say umadu taageerayso maan uga midahay anigu naag mihi calanka la wadata naag reer Djibouti baan ahay Ismaaciil waxaan u taageerayaa mabda'aygaana ku jecelahay oo ugu taageerayaa maha qabiil laakiin Ismaaciil milyan ba amaana oo reer Soomaaliya leh reer Xamar leh reer Waqooyi leh reer Djibouti leh aan teedeeda waan ka duwanahay hadaba waxaan ii sheegayaa inaan ka duwanahay so waxaan ii sheegaa dhibaato badan ba ani qurbahan iga haysataa Ingiriiska oo igu hayo xanxanteeye igu hayo haddana calanka Djibouti samaynayo jeebadeedan kala soo baxaa waa dadku inay farxaan maxaa la dhahdaa waa calankii mamaasanka markii mar hore mar labaad baa la igu sameeyaa mar walba sheekana way dhacdaa calanka soo jiraba xanxanteeye anaka ma isku fiicneen laakiin markuu calan jirin oo islaamiya uu fiican yahay ma garanayo hadda maxay hayday marka labaad calankii ugu dambeeyay sameeynay xanxanteeye wuxuu sameeyay inuu idhaahdo gabadhaas waxaan na raac meel qurahan ku dhigano laakiin sheekadaasi waa wax been ah waan inii sheegay in wax been ay tahay xanxanteeye waan in adeerkaya runta u sheegaya yaani haduu isagu ila hadlay way fiicnaan lahayd laakiin inuu dabadeeda ka hadlo waa nin raga nin iyo naag baan kala nahay inuu yaani garab joogsado oo maxayda laygu shido oo waa mamaasan iyo waa maxay iyo politic loo sameeyo wax fiican maaha talabaad Sweden dadkii Sweden jaaliyadii Sweden reer Djibouti uu kala jaray aniga waa layga soo casumay Sweden isagu meeshuu ka dhigi jiray uu tagi jiray waligiiba baa layga yeedhay aniga nimca jaamac waa fanaanadii qaranka waa loo yeedhay anigana waa la yeedhay anu maxaan uga haray waan ka haray waxaan nacay ummadii kala jajaban oo lagu sheegay taas waa macaarid horta calanku macaarid maxaafitoona male ummadu waa mid quraata cala markay noqoto politik dadku ka saaraan ma fiicna politika ma fiicno ina ummadda la kala fogeeyna ma fiicna anaku waxa rabna ummadina soo dhaweynana ummadda fogeeyna ma fiicna macaarid maxaafid waa reer Djibouti ina ummadda la kala fogeeyna wax fiican maaha ninka macaaridku waxa rabaa ina soo fadhiiso wax u sheego on ka raado dawladdeena Djibouti ma sida waa sidan kale wuxuu fahansan inaan waxayda ee khaladka inaan runta uga sheego inaa waxas maaha laakiin xanxanteeye dadka waxa jeceshiin ma garanay waxa jeceshiin ma lumaleeyaa dadka habeenkiina macaaridka aroortiina maxaafidka oo inta intii maday qaar kamida ay jiraan sidaas aanu ognahay oo la og yahay so waxaan inii sheegay cida aan ka gabanay internet midana ma jiro waxa runaan sheegay aniga waxaan inii sheegay dawladdeena Djibouti ummadda ha kala fogeynina ummadda niyad jab ha ku ridina dadkina reer Djibouti inta inii jecel badan laakiin waxa u maleynaya sidan ay ku socoteen in ummaddu niga fogaan doonto anaguna bari aan waxba nii qaban karin waxaan kaloo sheegayaa dawladdu waxay ku noqotaa dadkeega inay laashato waxaan inii sheegayaa dadkeena reer Djibouti yaad u baahan tihiin anaguna waan inii baahanay inkuna waan noo baahan tihiin waxaan inii sheegay dadkiina ina soo dhawaysateen yaa inii wanaagsan maaha aan waxaan ka yaabay Cali Senyo waa nin wariye ah waxaan inii sheegayaa ina dadka aad ugu soo dhibtiin inay isagu tigidho u jaro ay dadka ay kala doortaan isagii qaar kalaba ay dadka ay kala dooranayeen yaa la sheegayay hooyadii fanka oo Faadima Ahmed Dambiil oo la yaqaanana oo wadanka ay nala joogta maanta ay ceebtaasi ay dhacday
oo caliseeyna wakiil ka noqdo ayda ka soo gudub dad waaweyn oo reer Djibouti oo duqeyti baanu leenahay wadanka jooga waxaas ceeb baa dhacday waxa dhacday niyad jab baa dhacday dadkii dhalinyartii inii ordaysay dhibaato dhacday dadku way guuxayaan runta inii sheegay dadka ha iska fogeynina oo reedi anaka buuq iyo niyad jab waa nagu riteen mar labaad inay sheekadaas inay dhacdo iska ilaasha dadka qurbaha waa dadka ugu dhibaato badan iska ilaasha hadaa soo galisin umada mid ka dhiga amba iska dhaafa waxaan kaloo sheegayaa dawladdu waxay ku noqotaa dadkeega inay ilaashato waxaan inii sheegayaa dadkeena reer Djibouti yaad u baahan tihiin annaguna waan inii baahanay inkuna waa noo baahan tihiin waxaan inii sheegayaa dadkiina inaad soo dhawaysatiin yaa inii wanaagsan maaha aan waxaan ka yaabay Caliseeyo waa nin wariye ah waxaan inii sheegayaa inaad dadka aad ugu soo dhibtiin inay isagu tigidh u jaro ay dadka ay kala doordoortaan isagii qaar kalaba ay dadka ay kala dooranayeen yaa la sheegayay hooyadii fanka oo Faadima Axmed Dambiil oo la yaqaanana oo wadanka ay nala joogta maanta ay ceebtaasi ay dhacday oo Caliseeyna wakiil ka noqdo ayda ka soo gudub dad waaweyn oo reer Djibouti oo duqeyti baanu leenahay wadanka jooga waxaas ceeb baa dhacday waxa dhacday niyad jab baa dhacday dadkii dhalinyartii inii ordaysay dhibaato dhacday dadku way guuxayaan runta inii sheegay dadka ha iska fogeynina oo reedi anaka buuq iyo niyad jab waa nagu riteen mar labaad inay sheekadaas inay dhacdo iska ilaasha dadka qurbaha waa dadka ugu dhibaato badan iska ilaasha hadaa soo galisin umada mid ka dhiga amba iska dhaafa intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan ka soo diyaarinay qaar ka mid ah fanaaniinta reer Djibouti ee ku sugan magaalada London وعبشة حوجة كموجيي قابكي لوح لفنانينتي لغو مرتي قادم هركا وزيركا وحبرشة دالك جبوتي يقبل دولي مدحوينها دالك جبوتي اسماعيل عمر قليب